assalaamu calaykum. taas baa keentay in nidaamka cusub ee federaalka lagu dhiso qabiil tan oo looga dan leeyahay in ay 30 sano oo kale ku sii jiraan dawqaad iyo isdaba wareeg ta kale waxay ka fikireen in aan qabiilada isku abtirsiga ahayn aan lagu ururin hal maamul goboleed laakiin in mid kasta lagu barxo dad kale taasoo keenaysa muran joogto ah oo ka jeedinaysa midnimadooda iyo dhismaha awoodooda sidoo kale faa'iidada ugu weyn waa in maamul goboleed kasta ay gaar looga fushido danaha iyo kheyraadka ku duugan dhulkooda mid walba midda ku xigtana uu cadow ku noqdo waxay ku dambeynayaan inta ay xusayso heestan aad moodo in ay sii saadaalinayso suuradda dambe ee ay Soomaalidu yeelan doonto heesta Cabdulla Yuusuf Hanuuniye ku luuqeeyay iyo arinta halkan lagu qorsheynayo waa isugu ka yimid iyagoo eegay xidigaha ay go'aamiyeen in sanadka 2016 ka hor la dhameystiro dhismaha nidaamka federaal 2017 hadii ay gaadho ay aaminsan yihiin inuu u dhalanayo xidig Soomaalida waana sababta wax walba loo dadejinayo ma jirin mufakir Soomaali ah oo qaabeynta ummadooda qayb ka ahaa ama se wax laga weydiiyay waa markii koowaad ee aynu daawadayaal ka noqonayno masiirka mustaqbalka oo horteena lagu wareemayo mar la isla soo qaaday sumadaha la dul dhigayo maamulada la dhisayo ayaa la isla qaatay in buluuga baal laga soo geliyo waxayna ku dhawaaqeen blue is a magic power dawladda federaalka Soomaaliya calanka u saaran ee buluuga ayaa ah sixir ummadda dul suran shirkaas ayaan ka soo fahmay in midabkaasi uu taagan yahay barwaaqo sooran waa commonwealth ka dhaxeeya ummadaha adduunka ku uuman Soomaaliyana ay tahay meel loo haysto inay tahay kaydkii aadanaha oo ay ka mamnuuc tahay in cid gaar ah sheegato buluugu waxa uu astaan u yahay wax kasta oo la wada leeyahay UN-ta FIFA Olympiga iyo hay'ado badan oo caalami ah damca in Soomaalida Talyaaniga guumeystay dib loogu kala daro Itoobiya iyo Kenya rag baa meesha soo dhigay waxay yiraahdeen waa shaqaysaa aragtida laga dhaxlay aqoonta maamulka ee loo yaqaano change management taasoo qabta fikradda la yiraahdo freezing defreezing and refreezing oo u taagan gumaysi ka saar oo dib u gumayso colonization decolonization and recolonization waxay qabaan ay istuseen in ay shaqayn karto hadii Jubbaland lagu daro Kenya in ay u hirgalayso sidii ay u hirgashay NFD-da 1956 hadii Itoobiya la siiyo jubbooyinkeena ay u shaqaynayso sidii ay u shaqaysay ku wareejintii Hawd iyo Reserve Area 1954 taariikh hore u dhacday ay u yaqaanaan tijaabo guuleysatay waxaanay aaminsan yihiin hadii mar labaad la hawlgeliyo in ay u shaqayn karto sidii markii hore ay u shaqaysay hase yeeshee aqoon-yahanada qaar baa u arkay in aanay suuragal ahayn damacaasi waxa kaloo jira rag aaminsan in ay Kenya awood u lahayn in ay fulin karto hawlahaas Mareykankana ugu baaqaya in aanu ku eegin dhaxal wareejinta dhulka Soomaaliyeed Kenyada daciifka ah Mareykanka ay rabaan inuu toos ula wareego deegaanada Soomaalida waa mid farsamo ahaan ku adag siyaasadda Mareykanka waayo dunida ayaa ka qaylin doonta hadii ka weyni uu u bareero inuu muquumiyo ka yar markaas ma aha talaabo uu toos u qaadi karo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo cid kale tooni culimo badan oo reer galbeed ah ayaa aaminsan in Soomaalida laga qaado xaqa ay ka tashiga Soomaaliduna ay noqoto dadka koowaad ee lagu tijaabinayo in laga xayuubiyo jiritaanka dawladnimo sidaas rag ku doodaya way badan yihiin laakiin aan soo qaadano macallin siyaasadda ka dhiga jaamacadda Mareykanka oo maqaal uu qoray ku cadeeyay mustaqbalka siyaasadeed iyo ismaamulka Soomaalida Professor Bill Gadrin maqaalkiisii oo la baxay qorshe weynaha qaybsiga Soomaalida ayuu intan ku xusay isaga oo qarsan cadaawadiisa hadalkan oo u dhacay in Soomaalida laga qaado xaqa ay ka tashiga aanay ahayn dhimasho ee ay tahay ku tiirsanaan doonaan beesha caalamka waa cadaabad la rabo in la tirtiro nidaamka ismaamul ee Soomaalida oo ah xaq ay aadamuhu isman yihiin oo laga qaadi karin Soomaalidu waxay noqonaysaa dadka ugu horeeya ee xaqa si toos ah looga xayuubiyo anoo sarinta hotelka aan deganahay qadaadka u jiifa oo fikir ku fogaaday ay fariin soo dhacday waan soo qaaday waxaba soo diray Ben Solomon fariintu waa nooca xidhan ee loo yaqaan encrypted message waxaan soo dejiyay application lagu furayo fariimaha noocaas ah fariintii waxa ay farisay in aan ka faa'iideysto habeenada soo socda ee dayaxu yahay 13aad 14aad iyo 15aad oo ah 3 habeen oo awooda waa habeenada dayaxu ugu tamarta badan yahay wuxuu been igu boorinayaa in aan habeenada qaato go'aan kasta oo aan gaarayo talaabo kasta oo muhiim ah waxay qaadi jireen habeenada ma fahmin sirta ku jirta habeenadaas waa samid raadin ku yeelatay ha fikirkayga iyo kaydka xusuustaydaba tan uu Ben Solomon danaynayay waa in aan go'aan ka gaaro qaadashada darajada 23aad anigase ima furna darajadaas waxay diidan mooyaane markastoo aan maqlo cabsiya argagax ayaa ku soo dhacaysa laabtayda waxaan ugu jawaabay sarbeeb laakiin isagu waa fahmaya
Ben Solomon waxa uu sheegay in hawlo badan u xaniman yihiin darajada aanan weli gaadhin. Wuxuu igu booriyay inaan nafta ku dirqiyo in ay korto salaanka oo ay darajada qaadato. Talooyin igu caawinaya ayuu i siiyay mase fulin mid qura oo ka mid ah waayo ma jecli in aan noqdo waxay doonayaan in aan noqdo. Werwer ayaa igu soo xaadiray. Cod baase igu leh adkayso wax badan aad ogaatide. Codkan waan garanayaa waa codkii hore ila hadlay ee isla erayadan oo kale hore igu yiri. Waxaase ii caddaatay in ay gamco kale igu shaqaysanayaan. awood aan ku garto ciidaasna ma lihi. Waan ka warwaray si xad ah weliba. Waan yara tawaqay oo hurdo ayaan galay. waan riyooday riyada dhexdeeda ayaa qof dharcad xidhan. waan jeclaystay inaan arko mase awoodo inaan arko waxa uu igu yiri hawlwelin hana murugoon uma xumid sida aad ismoodayso. darajada ha doonin ma tiiso xoroole ay ala kala dhinteen. waxaan ku qayliyay oo hadda maxaan ahay maxaan meesha ka qabanayaa. iima jawaabin waa iga tagay. waxaan hurdada ka soo booday anoo aan fariirsan oo ilmadu dhamanadeeda qoysay. riyada aan arkay waxay bedeshay meertadayda nololeed ee aan ku soo qaatay 9 sano oo madow. waxa ay cadaaday oo riyadu ii fasirtay cabsidii aan ka qabay darajada 23aad. faahfaahin dheeraad ah la ima siin. fahn ayaan u baahday. markaas ayaan bilaabay inaan xog raadiyo. helidda xogtaas oo adag ayaan waqti dheer ku qaatay. baaritaan website iyo YouTube leh. waxaanse dareemay gaajo xad dhaaf ah. waxaan u soo baxay maqaaxi aan ka fogeyn meesha aan deganahay. cunto fudud ayaan dalbaday. markaan cabaar dul fadhiyay ayay agtayda soo fadhiisteen 2 qof oo suuradoodu oromo leh. waan eegayaa anigoo dareensan inay aniga ii socdaan. waxay bilaabeen inay af Soomaali ku hadlaan. waan yaabay. waan ka shikiyay oo nafta ayaa igu leh adiga ayaa lagu soo diray. markaan dareenkaygii wada siiyay oo aan si badownimo leh u eegay ayuu mid ka mid ah ku yiri kii kale iiga waran sida sixirka loo barto. cabsi ayaa wadnuhu ii garaacay. waa maxay nimankan ka hadlaya waxaad maanta dhan baadhisay. sirdoon ayaan u qaatay oo dabagal ku haya wixii aan ka baadhayay internetka. kii kale ayaa jawaabtii qaatay. kitaabka Shamsul Mucaarif ayaa dhigaya in qofku ka dheeraado duxda iyo oonta xoolaha. kii kale oo ka guraya haye deeto 40 maalmood ayaad buur saarnaanaysaa oo aad wax akhrinaysaa. haye markaas ayuu kuu imaanayaa wax suurad aad ka naxda leh. markaas ayaad galaysaa heshiis lagu barayo sixirka. cabsi ayuu wadnuhu garaacmayaa si xoog leh. nafta ayaa haysaa. waan sii argagaxay deeto iyagaa hal mar kor u qaaday codkooga. waxay yidhaahdeen waxaa hoogay ka sixir cilmi mooda. saaxir kastana abaalkiisu waa jahannama. way kaceen oo dhaqaajiyeen. iid waaweyn ayaa iga soo daatay. waxaan garwaaqsaday in hab kale oo sare la ii siiyey xog aan orod iyo ayaan la kula ah. culayskii ayaa iga kala degay. waxaan garwaaqsaday in wixii ay aqoonta igu sheegayeen uu ahaa sixir. qalbigayguna uu ahaa ka mar walba ii digaya ee diidanaa in aan dariiqa qaado. lacagtii ayaan bixiyay. tallaabada ayaan hoos ka soo xaday anoo baala daymoonaya oo cabsi yar igu wareegayso. waxaan soo istaagay receptionka hoteelka si aan furaha uga qaato. mid isna fure lulaya ayaa ku hadaaqaya. alle wuxuu habeen iyo maalin walba uga digaa madowga iyo iftiinka dhexdooda mase arkayaan adoomihiisa. fariimaha tooska ah ee uu soo dirayo maaha qaar fahmaya oo ku cibro qaata. laba kastaaba digniin bay sidaan. furihii ma qaadan ee waan kala jeestay oo halkii albaabka xigay ayaan u dhaqaaqay. waxaan sii maqlayaa gabadhii oo leh mudane furahaagii maase jaleecin.